kooxda xidigaha geeska ee ka dhisan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa munaasabadaha dhimo sharafeeda ku maamusay maama Maryan Mursal Ciise oo safar ku timid dalkani Soomaaliland. Munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay oo ay ku weelinayaan kooxaha kale ee fanka iyo haldoorka fanka oo aan loo kala hadhin ayaa iyaguna waxa munaasabada goobjoog ka ah mas'uuliyiinta sarsare ee kooxda xidigaha geeska oo horkacayaan gudoomiye ku-xigeenka kooxda xidigaha geeska xogayaa kooxda iyo fanaaniinta kooxda ka tirsan oo ay weheliyaan haldoorka muga kule fanka Soomaaliyeed oo iyaguna munaasabada goobjoog ka ahaa kuwooda qurbaha uga soo hayaamay iyo kuwooda dalka joogaba. Munaasabadan oo ahayd mid gebi ahaanba kulmisay ehel faneed oo muddo kala baaday waayana kala maqnaa. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka kooxda xidigaha geeska Mustafa Saleebaan, xogayaa kooxda xidigaha geeska Maxamed Axmed Bakaal Ciro iyo weliba qaar ka mid ah fanaaniintii kala duwanaa iyaguna munaasabadani ka soo qayb galay oo ay taraxdo Marwa Aamina oo iyaduna ka mid ah dhiirigeliyayaasha fanka Soomaaliyeed siiba kooxda xidigaha geeska una fududaysa hawlo badan. waxaana ka mid ah hadaladoodii hadduu fanaan meel kale ka yimaado ama abwaan meel kale ka yimaado in intii kale la baxdahay ay soo dhaweeyaan oo ay sharfaan oo ay karaamayaan. Maryan waxa dheer tahay iyadoo maamadii fanka ah intan imika fanka Soomaaliyeed maamooyinka ugu waaweyn ka mid tahay aad u soo dhawaada wadankiina ku soo dhawaada Aamina Mustawi iyo qurbo joog kale iyo asxaab kale badan baa joogta fanaaniin kale joogta aad baan soo dhaweynaa. waxaa noo sharafa maanta annagoo maamadii aan meel kula qadaynayno horta anu inta markii fanka bilaabay Soomaal lahayn cimrigaygu hadduu igu sameeyaan maama Maryan Mursal aan maanta arko meel kula qadayo aad ayaan ugu faraxsanahay. sidoo kale waxaan halka soo gudbinayaa Axmed Ibrahim Furmle oo maamada salaaniga gaarsiiyay Djibouti jooga iyo kooxda intii kale sida Asma iyo Hamda iyo Maxamed Biike. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan tahay. halkan waxaa ku idil oo ku dhameystiran kooxda xidigaha geeska maamul iyo xubnaba waxaanu sameynaa qada sharaf sidii loogu bartay aanu ku maamuusayno maama Maryan Mursal Ciise Bootaan. horta marka koowaad dhammaan fanaaniinta tirada badan aan magacyadooda soo koobi karin miiskan nala fadhida caasimada sharafta leh ay noo sameeyeen xidigaha geeska oo waliba u sameeyeen Maryan Mursal Ciise Bootaan. ayaan idin salaamayaa fanaaniinta xidigaha geeska Nice Stars oo halkan ku maamuusay Maryan Mursal Ciise maamadii fanka. ma sha Allah horta waxaan aad ugu faraxsanahay oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maaragtay maanta qadar la leenahay maama Maryan Mursal Ciise Bootaan oo marna aniga ah inantaydii marna hooyaday ah aad iyo aad aanu soo dhaweynaynaa oo qalbi furan ku soo dhaweynaynaa maamadayada qaaliga maama Maryan Mursal Ciise Bootaan. intaasi kadib waxaa hadalka qaadatay maama Maryan Mursal Ciise hooyada fanka Soomaaliyeed oo muddooyinkii u dambeeyay dhulka Soomaalida safarro kala duwan ku gala bixinaysay balse haatan ku sugan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. labadii bilood ugu dambeysay Soomaaliland ee tusad ka soo maray marka yeysan isdhiin maxaa Maryan airportka iyo loogu soo dhaweyn waayay. aniga airportka Hargeysa inta la igu soo dhaweeyay 2 jeer ayaan waliba madaxweyne isku maleeyay markaas baan socodkiisa garan waayay sidoo u socdo madaxweyne. marka waxaan soo galay meeshaan iyadoo la ogeyn dhuumashaan ku soo galay haddii kale fanaaniinta airportka dhan baa la jiiri lahaa. Maxamed Tirike wararka Bulsho TV Hargeysa.